daaqadan waliba ka qaaday sawirkan soo boosti gareeyay nin sheeriska hotelka meelo sahalay warwaafigaaga isoo sheeg buu yirinayo bagar faa'iido wale oo niyadu ugu qabo sakiliina ush magaalada dhixta walalis I don't care ma tabin jirin dadka la tabiyo laakiin aanu ma tabiyo waxaad moodaa ururadeenu inaysan ku soo darinba jadwalkooda in sawir qaadista ay ka mid tahay miidiyihii waxaa moodaa tababarada ay qabanayaan waa tababar la xiriira warbaahintii un kaliya wax kale kuma dooran Puntland wuxuu ku doortay waxa waaye waa waxaynagu aan ka gudbinay iyo sometimes intaan wax soo gudbinayna waxay ka qayb qaadanaysaa amni in wadanka kale ka jiro inta halka inta ka tagtid 700 kilomitir aad gaari ku dhaxmadid amaana hasha yani Puntland waa dhul qarfa ah waa dhul aan maartay deegaan qurux badan oo bilic la aan lahayn waa dhul aan beer lahayn waa dhul aan xeebo qurux badan lahayn dhalinyarada waxay yiraahdeen waa beentiin weeye waxa weeye safar u galay khatar badan u galay ayagana maartay dhulka iktishaaf ama discovery sameeyay badan Puntland la saasayba taariikhdu ku beegato dhamaanteen soo baxnay daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ka hadlayna dalxiiska deegaanada Puntland markay noqoto 26 sano kadib ay dadka reer Puntland waxay u dabaaldegayaan August oo ay ku beegan tahay barnaamijka waxay kala qayb qaadanaya bilicda muuqaaladaasi dabaaldega arkaysan iyo sawiradaasi deegaanada Puntland iyo waliba deegaanada kale Soomaalida wiilasha tagay ee ka soo duubay barnaamijka isku soo dubaridkiisa iyo diyaarintiisa waxa qayb ka ah waaxda dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta dawladda Puntland oo uu qaybka oo agaasimo ka yahay raahday kiisa Yuusuf oo dhinacayga fadhiya hadii anaga dhinacayga bidixda waxa iga fadhiya Cabdiraxmaan Bulshaawi aad muuqaaladiisa iyo warbixinadiisa sawiradiisa la soo socotaan maxaa Cabdiraxmaan oo isaguna sidoo kale sawir qaada iyo muuqaal dubo intaba ah oo deegaanada Puntland ka daawataan xaga markaan u gudbo waxa fadhiya Abshir Cornel aad taqaaneen Abshir Cabdullaahi iyo sidoo kale Barra Cadaani oo iyaguba sidaan idin sheegay sawir qaadayaashaas muuqaal duubayaashaas kamid ah saaxiibadeyda miidiyaha waan ku soo dhaweyn doonaa balse waxaan ku horeynayaa inaan soo dhaweeyo Keese oo aan iraahdo soo dhawow bal nooga horee furitaanka barnaamijkaasi adigoo faahfaahinaya waaxda dalxiiska iyo doorka muhiimka ay qaateen dhalinyarada muuqaal duubayaasha sawir qaadayaasha isugu jira bahda warbaahinta kamidka ah بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اولا وان السلام يا دمانتين من خير عبد الولي جامع عبايدي iyo walaalahay sawir qaadayaasha dhammaantiin salaam alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatu aad baan idinkaga mahadcelinayaa kulankan aan maartay halkan isugu nimid sidaan u soo wada ajiibnay ilaahay baan mahad iskale isu keenay inta markaan u gudbo su'aasha abay weydiisay runtii dhalinyarada halkan fadhida waa dhalinyarada Puntland wajiga maanta ay leedahay yani ka bedelay baan maaran karnaa fikirka aw laga haystay oo ahaa fikir khaldan oo ah yani Puntland waa dhul qarfa ah waa dhul aan maartay deegaan qurux badan oo bilic la aan lahayn waa dhul aan beer lahayn waa dhul aan xeebo qurux badan lahayn dhalinyarada waxay yiraahdeen waa beentiin weeye waxa weeye safar u galay khatar badan u galay ayagana maartay dhulka iktishaaf ama discovery sameeyay badan oo sawiro badan oo qurux badan way mahadsan yihiin ilaahay mahad ka gaadhay soo bandhigay ummadana maartay u shaaciyay haday tahay reer Puntland gaar ahaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad ba mahadsantihiin meel adag baad nooga taalan runtii waan idinku xisaabtanaa mar walbaba rag noo xisaabsan baana tihiin waxaan rabaa inaan xuso halkan ka xuso dhalinyaradan waxaan naga maqan Awaale oo isna kamid ah raggan kamid ah oo xoogaa maartay xalay barnaamijku naga baaqday uu kamid ahaa laakiin xoogaa ayaan naga yar xanuunsada Allah caafiyo isagana u ducaynaynaa dhammaantiin si guud anigoon kala saarayn aan idinku mahadcelinayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin barnaamijkuna kolay waa ka doodi doonaa oo socon doonaa halkaas waa asaasan idinku furay assalamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatu
aasimaada oo mahadsan tahay xagga barra cadaani waa u wareegaya horta wariyaashu marka ay iswareysanayaan su'aalaha awal waxay ka bilaabi jireen safarkii hebel oo magaaladii hebla markaa tagtay xaaladii aad la kulantay balse markan barra su'aasha waan kaaga duwayaaye barow sawirkii furitaankaaga ka hor barra ahaan markaad iska sheekaysid goormaa istira allay lehe waxaad u baahan tahay sawiro micnale inaad dadkan usoo bandhigto oo aad hibadaada dalkaaga quruxdiisa ku soo bandhigto horta ugu horreyn waa idin salaamayaa waxaan ku faraxsanahay inaan idinkala qayb galo barnaamijka oo aan ku falanqayn doono maalinta dalxiiska iyo caqabadihii dhalinyarada ka soo maray sawir qaadista iyo taariikhdoodii iyo waxaasoo dhan iyadoo 1 August ay hadda sanad guurida aan u dabaaldegayno 16aad Puntland horta runtii magacayga waxaa la dhahaa Axmed Maxamed Ciise magacayga formalka naanaystan waxaa la dhahaa Barra Cadaani Ciise marka social media barra la dhahaa cadaanina waa aabe marka kulay waxaan ka mid ahay dhalinyarada wuxuun ku biirisaa wadankooda contribution xagga bilicda oo sawir qaadayaasha isma li horta sawir qaada weyn baa tahay laakiin waxaan leeyahay intii karaamkaaga ahayd sawir fiican qaaday oo deegaanada Puntland kala duwana taasoo iga ahayd anigana waan jecelahay sawir qaadista oo passionate bay tahay tan labaadna waxaan isla haday wadankaaga ugu hiiliyo maadaama wadanka Soomaaliya uu burbur ka soo kabtay in bal la helo sawir qurux badan oo deegaanadii ka turjumaya oo kuwa taariikh xambaarsan yihiin oo kuwa xog dheer iyo xambaarsan yihiin goobo qurux badan laga soo qaaday si loo arko deegaanada ku noolahay iyo meel Soomaaliya waxay tahay meel qurux badan oo cid kasta noloshooda ay ka suura gali karto taas baa igu dhalisay marka inaan noqdo sawir qaade marka su'aashadan ka jawaabaan wali indhahaagu ma qabteen intaad yarayd oo aadan sawir qaaday inaad saxafi noqoto soo gaarinin wali indhahaagu ma qabteen humaag aad jeclaysanaysa marka inaad hesho waxaad ku sawirto aad sawirka qaato horta qofku marka uu hibada isku arko horta humaagiya u muuqda waxa laga yaabaa inaan kaamirooyin iskala soo degi jiraan oo kaamira awoodin inaan iibsado oo aan galeriga iskaga jirtay kaamirooyin kala duwan waxa laga yaabaa khibrad ahaan marka aad korto humaaga ku sawirnaa laftigooda inuu lumo oo wixii arriya loo aragtay markii dambe sawirka saxda ah qaado oo deegaanada saxda inta tagto sawirro kala duwan ka qaado xaaladiisi experience oo khibrad aad u dhax gasho marka waxaan isleeyahay wax badan ahir kale waxyaalo aan ku faraxsanaa kulli waagaas waxyaalaha ka mid ka ahaa aan isleeyahay awards waxaa ku heshay waxa ka mid ahaa sawir aan magaalo ka qaaday baa jiray oo sawir habeenba magaalo waxay leeyahay Paris marka war waxay xilli dambe ahayd adigu 9kii iyo barkii ahayd hotelka marka u socdaan dignaa magaalada Ceel Daahir gobolka bari ka bacdi sawirka saasaan u fiiriyay bir dheer baa marka magaalada ka dhex taagneed marka calaamada Paris bay la yareekaato magaalada aad bay u iftiimaysay habeenkaas marka sawir baan qaaday sawirka 3 habeen baan dadgareynay hadba dhinac ka fiirinay ma dhigtaa madeysa markii dambe sawirka waa post gareeyay ka bacdina sawirka feral buu noqday sawirka feral baa habeenkii noqday wuu qabsaday wadanku qabsaday dabeetana gudoomiyaha degmada wuxuu dhahay ninka odayga subaxii waxaan rabaa inaan ku abaal mariyo dhul marka subaxii ay yimaado waa comment gareey waxaan ku yiri subaxii baan kala wareegi doonaa ka bacdina Axmed baa la dhahay ninkaasna oday weeye marka dhulku subaxii ugu wareejiyay oo 20 magaalada Ceel Daahir hantiilaad ku noqotay marka sidoo kale iyana waxa dhacday mar aan halkaan joogay ina Garowe hotelka Martisoor ayaan sawir ka qaaday goor galabaan oo gaarigayga wata daaqadan waliba ka qaaday sawirkan soo post gareeyay nin shareska hotelka meela soo hadlayo warwaafigaaga soo sheeg buu yirinayo ma garatay isagan lacag buu soo diray ayaanta waxaan ku jiray ololaha Ceel Daahir Ceerigaabo oo wadada Ceel Daahir ah iyadana wuxuu ugu dhahay waxay igu dartaa lacag igu dar dhowr foosto lacag soo diray lacag buu soo diray ama leysanayn oo sawirka aawadiisa wali wuxuu inuu hayga xishoonay qalab iyo waxraad u baahan tahay isoo wac marka
bulshada waxa arkaysaa bulsho badan oo ka abaal marinaysa marka aad shaqo qabatid kuwa badan oo waxa arkaysaa hoos ku dhigaya kuwa badan oo canjarafeen kala kulmaysid kuwa sawiro fursad badan waxa arkaysaa isleeday raadi oo kaalmaya mararka qaarkood caqabadaha jira awdo dad waxa arkaysaa geed dushiisa sawirka qaadaya qof waxa arkaysaa gaari dushiisa sawirka qaadaya marka caqabado fiican laga maraa sawirka sawiro kale oo aan lugeeyay waxaan xusuustaa ilaa 9 kilomitir meel kamid ah gobolka Sanaag sawiro doctor aan ka qaaday اسمه أركا أملينيا أركا صور كاس لوك بان قاضي ولو مول باوتي أكسس ولا حتى أنا كاميرون قلب كاوتي كل سوني ده لفتي وحكي أنت قف وح أو دون صور قاضي كرا مركا حرفة لا هاي قونت لا هاي حرفة كل سوني ده كمان صح حرفة كل سوني ده كمان صح مركا استعد يكون حجرتي كاميرا دي قونتينا سكيل فلان هو كرديا كونتينيوس لين باكو جرتا مركز طاو وحبرشدي بدرسي وحبرشدي مركز طاقيب كنقول ساينات waxbarashada kuwa korodho khibradda kuwa korodho mindsetka oo kordho waxyaana islee oo laga faa'iido marka wax ka mid tahay kaamirada ugu badan waxay tahay connecting with people inaad dadku xirantid caalamka si fiican ugu xidhiidhid inaad dad badan entrepreneurs mataqana opportunities ay heshiid oo fursado ganacsi xitaa sameyn kartid oo media iyo meel kala duwan aad furan kartid waxa kamid ah mataqana wax la dhaho creative expression inaad waxa aqoonta aad leedahay inaad soo bandhigi karto ama sawir ha noqoto ama muuqaal ha noqoto marka awooddaadii baa dunida tusaysa saasa dad kugu soo xirmayaan marka maadaama bulsho duwan ay wax kugu kala xirantaan waa awooddaada iyo aqoontaada iyo kartidaada marka waxay noqonaysaa inaad sii wadid oo self moral ah heshid oo aad shaqadii ku sii dhex jirtid runtii sawir qaadistu caalamka wax weyn bay ka tahay oo wax la dhaho markii la qeexayo photography markii la qeexo arts iyo science labadaba isugu jirtaa marka caalamka door weyn bay ka leedahay waxa arkaysaa oday weyn oo reerkiisa wixii education qaadanayo muuqaal ku soo duubayo doonta maanta si loo tijaabiyo waxa laga yaabaa halka in la dhaho warada iska sii weynaata mustaqbal badan ma siilay ma ka baxda marka heerkii la rabay qofku waxa moodaya inta dhalinyarada yahay oo yes ha inta dhalinyarada yahay inuu qofkii ku sii dhex jiro waxa laga yaabaa in arko midba sii socdo inuu sii macsanaa diyaar marka soo wareejinaya aad mahadsan tahay abshir corneel intaan su'aashiisa weydiin aniga burtinle waxa laga yaabaa mudug ka imanaa burtinle soo maro oo inta laamiga aan garanayo laakiin magaalo ahaan inaan si kor u wada arko magaalada inaan aqaana ay ka dhigan tahay abshir corneel baa baray yani sawirkiisa ay baray inaan burtinle barto inaan reehooda ay sheegaysaa dad kale ma sheegay daafurkii soo dhawo horta burtinlena bartay adiguna iska ay bar magacayga waa abshir cabdullaahi corneel dadka qaybtooda waxay goran Guinea corneel si waxa soo gaabsay abshir cabdullaahi okay dad badan baa magac kala mooday inaan hawlo kale uga dalnayahay laakiin magacaygu aad iyo aad baraadii si fiican uga sheekeeyay waxa weeye taariikh adag iyo ka sheekeeyay sawir qaadida iyo muuqaal duubiduna waa wax wadamada lagu dhiso inta badan annaguna inta ugu badan waxa nagu dhiirigeliyo waxa weeye maadaama wadankeenu burburay oo xaalada badan soo maray oo markaad Google ka soo geliso sawirada ku soo baxayeen sawiro dhibaato iyo ka sheekeynaya inaanu bedelno picture-ka ka muuqda wadanka iyo meelaha foosh xun markaasna waxa ugu horeysay deegaanka aan markaa joogay inaan bedelo bidiciis marka dad badan baa waxa laga yaabaa inta badan Portland kugu baranay baa la dhahaa marka gobolka Hawdo insha Allah daan rajayna madaxweynuhu magacaabo waan inta badan u ololeyn jiray sawiro qodux badan ka soo qaaday jiray halkaas la igu soo bartay laakiin muddooyinku dambeeyay garawaan deganaa sawir qaadiduna waa mihnada ama waxaan passion ahaan u jeclaa inkastoona marar badan iska ilaaliya laakiin dadka inaa sawiraan u jecel nature-ka jeclaa sawirtay baan kamid ahay inta badan marka waxaan jeclaa inaan waxyaalaha cagaarka iyo deegaanka inaan sawiro sawirada marka laga yimaado inaan dalxiiska dhiirigeliyana muddo 5 sano hadda laga joogo waan bilaabay muuqaalo inaan duuduubo guud ahaan marka deegaanada Puntland oo maraya iyo waqooyiba inta ugu badan oo sawiro iyo muuqaalo ka soo gudbin jiray 2019 meelaha markaasaan jeclaa inaan iskay anoo waxa noloshayda naftayda ahaan inaan jeclaa inaan soo gudbiyo baan soo gudbin jiray iyo hibo ama sawiro qaada iyadoo aniga inaan jeclahay inaan deegaanka sawiro kadibna soo gudbiyo kadibna
aan waxa weeye bulshada la wadaago bal dhulkii si isku bedelay taasna waxaa kalifay waxa weeye inta badan dadku waxay ku mashquulaan warbaahinta siyaasadda iyo ka sheekeeyaan iyo waxa dhacay haddaan wax yar dib u noqdo Portland markaan joogay platform waxaa jira aan ku shaqayn jirnay Hayaan TV TV-yada kale oo deegaanka jooga waxa laga yaabaa in siyaasadda iyo maanta magaalada hadda dhib ka dhacdo iyo howlo dhacaan ay soo gudbiyaan laakiin waxaan kaga duwanaa inta badan waxa isku dii jiray positive clear waxyaalaha markaa bulshada faa'iido u leh oo niyadda ugu qabowsa kaliya noosh magaalada dhexda ololis I don't care ma tabin jirin dadka la tabiyo laakiin aanu ma tabiyo saasaan mar walba maadaama dadka inta xun loo soo gudbiyana wanaag inaan bal lagu barto inaan markaas jeclaystay kadib halkan markaa imidna waxa weeye waxaan helay garab badan oo asxaab badan oo hadda xaggan wada fadhiyaan inta badan isla soo shaqaynay in badan way ka duwan tahay markaad keligaa tahay iyo markaad group tahay hadda inteena xaggan fadhida inta badan isbuuc aanu ismaqal ama waa ismaqalnaa inta badan waana dadka ugu badan oo Puntland muuqaalada soo duuba aanu isku xirannahay waanu iska warqabnaa waan isdhiirigelinaa xataa social media markay noqoto TikTok-ga inta badan annagoo kun qof haysan baan isdhiirigelin jirnay ku tartami jirnay ayadoo saxiifaltankaas yahay positive in qofku dadaalo waxa weeye deegaanka ugu tartamo kadibna waxa weeye guud ahaan Soomaaliya oo dhan koonfur iyo waqooyiba safaro gaagaaban aan ku tagay inaan dadka tuso dhinac wanaagsan ana xirfadeydana ku shaqaysanayo programku waxaan maleynayaa iska ibafur khiyaarta kalena waxay waqtiga siinayaa lagama gooyan karo soo raagay baa soo gaaray Maxamed Cabdiraxmaan khiyaartaasna waxa weeye horta marka hore siinayaa ayaga inta dhimanna ku dari doono insha Allah maxamed media magacyo badan kula baxday shakeeto waa lagu bixiyay guuleed waa lagu bixiyay sawir qaadista tolo magac wiil ma kula baxday may magac kala bixin wali waa raadinaya laakiin magaciinahayga saxda ah magac sawir qaadana soo socdo soo dhawow furitaanka ku soo dhawow bal adiguna in yar waxaad naga siisaa sharaxaad maxaa Cabdiraxmaan waa kuma bal Maxamed iyo laftigiisu sawir qaadista iyo waayihii sawir qaadista bilowga ahaa ama khayraada ku salaamaya adigii agaasimaha dhalinyarta kale oo barnaamijkan ugu casman run ahaantii waxa la yiraahday ninka hadal badiya ama raka hadal badiya haddii ay hadalka kaga hormar xukuma habayaan laakiin waa أنا أدين كفر يا سما. ninkii bara cadaaniyaha iyo saaxiibka Abshir Cornel baa dambeeyay barana waxa taariikhday marka shakhsiyan magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan inta badan platformka social media waxa ku mara Maxamed Cabdiraxmaan laakiin nina satr badan way jiraanay oo hadda ugu dambeysay dhawaan waan guulad la baxay bilka horbaad guulad la baxay bilka filin aan ka soo dhex muuqday ruuxaagu ay gula jideen laakiin labadan adaa magaca ka bedelay anu magaciga bedelay ninkii ayama maxaali ha ninkii ina ka doonay oo dhinacayna ka fadhiyay shirkadda ma maxaanid wari ma qarxinin shakeetiba waxa uu qarxay magaca guulad aha hadda meel ka soo maray guuleedo dhinaca leega aan markaas la guuladnoodii marka waa magacyada hore Soomaaliya runtii ay tahay magaca waxa la baxan waxa weeye in magacyada hore Soomaalida la dhiirigeliyo la soo noqdo sidoo kalena waa saameynta ay leedahay hadda barnaamijkan sawir qaadida ninka magaciisi waxa loogu yeerayaa magac kale sabab la xiriir in muuqaal lagu arkay aad media waxa ay bedelaan dunida wax ka shay kale oo bedeli kara ma jiro shay hal wax oo media qofku uu isbedel ku sameyn karo noloshiisa dhalo wax kasta haduu sameeyo uu bedeli karayo runtii waa taan aan u soo kaamirada iyo mobile iyo wax kasta oo soo qaadanay inaan wadanka kan iyo isbedelka turkiga soo maray inaan bedelno runtii dul badan waa maray Soomaaliya badankeeda in badan waa maray aan sabtaasna waxa la dhahaa niman rumayn dhaay mare aado marka loo faa'iido waa leedahay in wadanka ku dhex nooshahay aad baratid wixii qurux oo ishaad qabatana aad soo gudbisid dadkuna ay ku bartaan narrative-ka ah inaad wax qurux badan wadanka ka soo kordhinaysid runtii aad ugu faraxsanahay horta waxay ahayd programkan oo soo dahay mar horeba in la qabto dayar tira badan oo meediyaha ku jira wax qurux badan iyo wadanka quruxdiisa iyo bilciisa soo gudbisana wayna ka maqan yihiin waxaan halkan uga soo koobi karaa laakiin afarteena wax rajayna caawa fursadana hana dayarta kalena fursad in la siiyo Maxamed ahaan sawir qaadistu iyo muuqaal duubistu inta badan waxa la xiriira qofka wax gudihiisa ka soo dhex baxa haddaan jaamacadda ka soo baxay waxa arkaano
كاميرا لو أرداي ماشي شقة كلا رادين لها رانتي ولي وأنا شقة هايستا في عن يعني رانتي وأنا قلت جان إن كاميرا ما نقضو نكاس حيك عشرة سكور هنا يبرشاوي لوضو شقة وداك هاي مركا waxa kana jeceshahay waxa haysid weynay ka kahayaan wixii aad jeceshahay sideeda baad aadid wadanka quruxdiisu ina soo gudbina inaga oo bayna qusaysayo ina saaran tahay oo kamarada u qaadan ruuxantii haddana isdoo waxyaalihii aad qabatay ama aad qaaday haddana ama laba aan ka taabto ruuxantii sawirkii ama muuqaalkii labadaba waa isku soo daray galabtaas oo ugu saameynta badnaa wuxuu ahaa sawir ay adag tahay in qof walba uu la kulmo ama muuqaal ay adag tahay cimilada wadankeena way isbedbedeshaa galabaan garow isaga baxnay waxaan u soconay ruuxantii inaan hilib iyo iska doorano kaamirad weyn ma wadan daroon bas baan qaatay iyo mobile balse waxaan la soo kulmay wax dad tira badan nagu soo xiray ruuxantiina aad u qurux badnaa markaan safarkeena ka soo laabanay yaa roob meel lagu qabto wadanku iska barwaaqo ahaa marka inaad heshid roob iyo dhul qurux badan iyo geel inta dhiiqa ku jira waa waxay muuqaalo iyo sawir qaybtoona safara loo galaa waxa la sawir hebel ba halka ka soo qaadaya waa waxa aad ugu xisaabtami kadib waxna waa waxdan ku xisaabtami kadib marka waxa aad ku xisaabtami baa sometimes waxay ka xog badan yihiin waxa aad ku xisaabtamaysaa marka dadku inay deegaanka tagaan badan abuuray oo dad badan u dalxiistay tiro badan oo dhahay meeshan waxa magac weyn ruuxeed iyo yaarato waa kamid ah dadku ku weydiinayay xamra ruuxantii siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed ay soo weydiiyeen oo dhaheen sawiraantaan u baahanahay inaan daabacaan access ma noo siinayaan dhahay waa daabacaan ka maadaama wixii aan u safrinay ay ahayd ba intaasina soo gudbay marka run ahaantii aadaan ugu faraxsanahay hadalka saaxiibkii Bushaawi ma ka booyo waxaan diidayaa bal waxa waa leega hadal badan yahay laakiin waad yaraysanin marka Bushaawi ku soo dhaweynaa ma santa Cabdiraxmaan waa ku soo dhaweynayaa inkastoo dhamaantiin dad media ka soo wada shaqeynayaan laakiin Cabdiraxmaan si gaar ah marka aanu ma aragtay bahasha ku cusbay baan isla soo jaan qaadnay dadkan media soo wada bilowna waxaan warbaahineed ka soo wada shaqeynay marka aba ka horeeyay haddana Cabdiraxmaan markuu sawir qaadista bilaabay xataa waan xasuustaa sawiradii ugu horeeyay isagoo saxafiyood shaqadii ku dhex jira markaste oo shaqadii dhamaantiin ku wada dhex jirteen haddana sawir qaadistu way ka duwaneed yani shaqadii maalinlaha ku wada jirteen marka si gaar ah sawirada soo bandhigay marka Cabdiraxmaan markuu sawirada soo qaadi jiray maalmo hore sawirada soo dhigi jiray waxa is dhihi jiray malaha Cabdiraxmaan xilliyada uu sii eegta wala si balama waqtiga sawirka soo qaaday oo soo dhaweynaya khayraada ma santahay waa ku faraxsanahay runtii inaan dadkii aan soo wada shaqeynaa ka mid tahay oo muddo dheer aan soo wada shaqeynaa waliba anagoo markaas wariyaal wax soo wada gudbinaynay oo warbaahinta ku wada jirnay waa sidaa sheegtay oo horta xilliyadu waa iska nasiib marka qaybtood oo sidoo hadda Maxamed sheegayba marka qaybtood wax ku xisaabtamaynin baa wixii la kulmaysaa anigana badanaa sawirada aan qaaday waxa ku badnaayeen sawir yani dhacdo saas oo kale aan la kulmay jabi aan filanaynin anoo hal mar la kulmay marka sababta keenaysay waxaan oran karnaa wiilashiina sawir qaadayaasha nasiibkiina wanaagsan sawir qaadista waxay tahay horta de fursadii iyo diyaar garowgaaga wada kulmay taas waxay keenaysaa sawir qurux badan qaadato marka hadii adigoo diyaarsanaa fursad fiican hesho sawir qurux badan baa kulli meesha ka soo baxaya sida hadda asxaabteena ugu tirada badan hadda sawir qaadayaasha ay sawirada ku qaadeen sidaas aan dhihi karaa sidoo kale asxaabtii hadaan wax isbaro aniga magacayga oo dhameystiran waa Cabdiraxmaan Ibrahim Maxamed dadku Cabdiraxmaan Bulshaawi yaqaanaan gaar ahaan magaca Bulshaawi yaqaanaan sawir qaade iyo muuqaal duuba iyo waliba wariye Soomaaliyeed oo ka tirsan warbaahinta runtii aad ugu faraxsanahay in saddex mihnadood aad aan u jeclahay aan ku shaqeeyo inkastoo sanadihii ugu dambeeyay aan dhihi karo 5 sano 6 sano ugu dambeysay dhinaca warbaahinta caadiga kama soo muuqan oo aysan xoog saarin ba inay warar xiiso leh wax la mid ah ay raadiyaan oo ay iska soo koomateen xaflad la tagayo ama wax la mid ah barihi bulshada mihnadii xakameeyay talabaadna dhalinyarteenu ay xoog u saarayaan aad moodina xoog saarayaan in wax negative oo markasta ay baahiyaan taas ay u khasabtay marka inaan bal is dhaho war ka yara duwan oo bal waxaad isku daydaa markan dhinacii wanaagsanaa iyo mataqaanaa bal dalkeen maadaama uu yahay dal soo kabanaya
aad bal sawiro iyo muuqaalo ka duwan dhalinyartu waxay baahayso aad gudbiso sidoo saaxiibka Abshir Cornel sheegayba damiidii maanta waxay focus ka saarayaan xaflad dhacday anigu idean Abshir ka duwanayno hadii maanta garow ay dhinac ka gubanayso markii laga tago caawimaad inaad sawiro caawimaad iyo wax la mid ah ka qaadid anigu shaqadayda ma ahan in garow aan wax fool xun ka gudbiyo waxaan aad xoog u saarayay runtii in wax wanaagsan aan gudbiyo kuma koobniyo kaliya neejarka maadaama Soomaaliya ay tahay dal soo kabanaya anigu runtii waxaan xoog saaraa wax kasta oo la isdhihi karo dalkeenu ka soo kabanaya haday noqoto dhanka dhaqanka haday noqoto dhanka sportska isdhexgalka bulshada xataa haday noqoto dhanka dhisitaanka ciidanka waxaan isku dayaa wax kasta oo Soomaaliya maanta ay kula tartami karto dalalka kale caalamka oo wanaagsan inaan soo bandhigo وأكتاي دي مقالة جروت صالح مركز سوق هذا نمر خير وكنا نانتي شن سنة كورمان سيد هاي معه مركز لفتر كذا لانكي ديفلوبمنتي وواحد رنتي وبدن أو وحي وبدنا عن رنتي سميني صبرنا قاعدي ديفلوبمنتي وبدناين مقالة يمكن الصومالي سيد أوكوريا رنتي بل صورنا عدين نقطة صور الدرون عدين نقطة صور عادي وحلم ده أنا بالكاق عنه marka runtii si waxa isku dhigi karaa warmatiid kaliya nin nature-kii landscape-kii ama sawirada deegaanadii kaliya waxa tahay nin dhammaan wax kasta Soomaaliya ay ka soo kabanaysa maanta isku day inuu sawiro runtii wax aad oo la yaab waxay ahayd hadda dhacdadii ugu dambeysay cajiibka ahayd sports baa runtii laga qabanayay halkan ka socday Puntland oo Puntland League baa socday marka intii anigu waan joogin kasto ciyaaraha qaybtooda aan safar ku yara maqnaa shaqooyin badalkooda joog jiray marka waxa cajiib ahayd dhalinyaro badan oo meesha imaanaysay waxa u imaanayeen kaliya inay wax xun ay raadiyaan bis in si ay u gudbiyaan runtii waxaan xasuustaa maalmaha kamida dhacdo yara garoonka dhacday waa kubad waa la iskhilaafayaa dhalinyar baa isku dhacaysa meel walba shaqo ka socoto way imaanaysaa marka waxaan xasuustaa dhalinyaro baa wuxuu sameeyay muuqaalo wuxuu duubay xogaa aan wanaagsaneyn qad meesha inta wax ka socdeen xataa live-ka dhalinyarta live-ka timinaysa aad baa runtii u mahadcelinaya waxay sameynayeen marka waxaas oo kale ay imaadaan kaamirada ka duwayeen oo bulshadii xakameyn ay sameynayeen nacam marka aad buu wuxuu u duubay runtii wax aan munaasab ahayn marka waxaan ku weerinayo maad iska daysido waxa qurux badan wax wanaagsan aad tabino oo runtii aan tusno yes in Soomaaliya sports wanaagsan ka socdo Puntland sports wanaagsan ka socdo marka wuxuu igu jawaabanayo aniga waxa ii kacaya oo shacabka ii yeelay waaba waxaanba marka waxa cajiiba saameyn bal waxa cajiiba in social media maanta anaga xukumayo oo ninkii dhalinyarta meesha ka fakar la wax wanaagsan gudbi inuu ka fakarayo dadka ku daawan doona ba waxaan ka helaya ama negative kan kicin doona ama ka soo hadli doona fahanay iyagu qaateen idinka sheekada ku watay ma la dhihi karaya bulshada dadka daawadaba qaybka wanaaga ma ahan xumaanta jecel bararka qaar way timaadaa laakiin haddana iyadoo saasi jirto Abshir marka wax qurux badan oo macna la keentaan idinku waxa uu dadka ugu badan sawirada iyo muuqaalada gudbiya wixii quruxda badan dadkoo dhan way xiiseynaan inagoo media ku wada jirna ba mararka qaar waxaan jeclaystaa mid idin kamida markuu sawir soo qaado ama meel tago inaan dib u sii firay meesha idinku la meesha xaqay ahayd way qurux badan tahay Abshir wanaagsan aad iyo Abshir u jawaabiyo horta dal soo kabanaya runtii nahay oo soo kabanaya dadkana Soomaaliyeed laftirkooda soo wada kabanaya taas keenaysa marka dadku inay ka wada fikiraan dhinaca negative-ka ha oo bulsho soo kabanaysa runtii wax badan oo khaladaad soo arkay oo ku faani jirtay dhanka kalena waxa weeye qofkeeni wariyaha ahaa wuxuu ka fikirayaa waxaan see daawasho badan u hesho inay negative noqdaan taasna runtii ma ahan dhan fiican aragtidayda waxaan u malaynayaa sababta dadku inta badan u jecel yihiin dhacdada dhacaysa ama dagaalka qofku wuxuu Soomaalidu wuxuu jecel yahay sheekada qofkan wuxuu rabaa inuu waxaan dhacay ogaado si kastoo tahay hadda saan ogaana Soomaaliya hadda wax ka bilowday film industry aad baa loo xiiseeyaa filimada dadka oo dhan baana ku wada xiran waxay xiiseeyaan dadku maaha filimkii waa sheeko u meeraan wax madadaaliya warbaahintiina waxay ku mashquulshay inta badan siyaasad dadkii marka waxay rabaan content-kii madadaalada maadaama waayaan sheeko kastoo dhacda TikTok-ga waxa hadda shida waxa weeye sheeko laba qof qosaysa inta badan shidanba marka laftarka iyagu inaan dhankaas eegno film industry-ga iyo sheekooyin dadkan bulshadu xiiseeyaan inaan soo bandhigno wax badan aynu ka galno sidii sheekadii guuleed oo kale inaynu hadda bulshada baa ku watay film industry-gaas waa la bilaabay hadda oo Puntland laba film baa lagu sameeyay saad ka warhaysaan oo ninka la yiraahdo Maxamed Xaraawe iyo oo director-ka iyo ninka la yiraahdo Nuux Muuse Birshab ayagana oo mahad celinayna laba film oo top ah oo waliba gadmay
bay sameeyaan mararka qaar bulshada waa ku watay dood buyna dhex kaliya laftigiisu xaqiisa ma falanqayn bay ahayd marka Cabdiraxmaan waa ninkaas Cabdiraxmaan soo bilowday shaqada warbaahinta والله شغل warbaahinta ummi waxba kama yareysan baa filayaa 2005 kaad markaa ku soo biiray aad baa runtii waxaan u mahadcelinayaa abaal ugu hayaa macallinkii horeeyay wuxuu qofkii ugu horeeyay kameradiiba oo tababara software-da editka xataa uu tababara xilligaas waxaan ahaa arday dugsi sare dhiganayay sanad uun baa waday laakiin 16 waan iska yara daayay maadaama aan xilligaas ahaa dugsi sare dhiganayay dugsi sare bilowgiisa dugsi sare markaan ka baxana 17kii markaa dib ugu soo laabtay markaa warbaahinta ama 16 dhamaadkiisa waa marka aniga adigu isku baxaan noqonay shaqo wadaag aan noqonay marka wakaas Kiisi Yuusuf Aadan marka la ku soo dhaweynaya daafur baad inoo sameysay agaasimaha waaxda dalxiiska maxay idin kaga dhigantaa wax ahaan sawir qaadista iyo markay noqoto muuqaal duubista ay bahda warbaahintu ka shaqeysay bilicda deegaanada la xiriira kharaab aad baa mahadsan tahay anaga wax weyn bay nooga dhigantaa runtii waxaan is oran karaa yani asadka kaliya aan haysanaba waa dhalinyarada halkan fadhida aniga hadda xafiiskayga haddaad tagtid waxaa ku dhegan sawiradooda ku dhegan marna ma gasho xafiiskayga waxaa ku dhegan sawirada ay wada qaadeen bulshaawe iyo Farra Cadaan iyo ninka la yiraahdo Abshir iyo Cawaale oo caawa naga maqan baa ku dhegan sawiradooda ku wada dhegan waxay ku cadeynaysaa markaas in yani source-ga aan haysanaaba ay dhalinyarada wax ay qaadeen ay tahay marka mar labaad marka hore oo mahadcelin mar labaadna oo mahadcelinaya ay kaliya ma dhamaan dhalinyarada kale oo ama videographerska ama photographerska oo mahadcelinaya waxaan uga faa'iideysanayaa oo kale laba fursadood runtii dalxiis sawir qaadistu waxay ka mid tahay tourism industry waxa la yiraahdo waxyaalaha dalxiiska la xiriira bay ku jirtaa sawir qaadista ku jirta muuqaal qaadista ku jira waxaas oo dhan waa qayb dalxiiska ka mid ah oo maartay la isku qaada waa sababta aan maartay barnaamijkan isugu soo xiriirnay oo aan uga soo shaqeynay inuu maartay caawin noo qabsoomo filal alxamdulillah noo qabsoomay sawir qaadistu markaan soo koobo laba kalimood ku soo koobay idinkoo raali ah sawir qaadistu camera inta la boodo sawir la qaadan ma aha dhalinyaro badan oo sawir intay yiraahdaan sawir baan qaadaynaa camera iskala boodaya marka oo horeysa adiga kamerada waa in isbarataan ujeedada macnaha guud dhalinyarada waxay barteen kaamerooyinkooda iyaga isbartay you have to know your camera kamerada laftirkeeda waa in adiga ku barataa mugtahay waayo kameradii muxuu ahaa adjustmentkeedii iyo sawirada qaasi yani quality-ga sawirada baa muhiim ah meesha sirta ku jirta waa quality-ga sawirada la qaaday mugta sida ISO-ga muxuu ahaa shutter speed-ka aperture-ka deegaankayaga kama soo qaata kuma yeelaan meelo lagu barto absolutely waa runta kuma yeelaan macaduna inta badan waxay xoog saaraan shaqooyinka qaatiga la xiranayo xafiiska ma yaqaaneen boohaas xataa koorsooyin noocaas deegaanka mara marka madii ka dhaca qabadu waxa weeye waxbarashada deegaanka absolutely been ma tababarada dadku ma dadaal yaraa tababarada waa la bixiyaa tababarada saxafiyiin si way jiraan laakiin waxa ethics taas waa isla meediyaha gudihiisa waa laakiin wali picture photography ada ku watay abay photography ama photography yani si gaar ah tababar gaar ah cid ka bixisa wali aniga shaqo inta aan ogahay umul-khayr wariyaasha ka mid tahay aan mar baan ka qayb galay inta badan waxa lagu tababar wax theory kaamirada gudaheeda oo in la daaro la dimiyo waxa iska koon maahan in qofka dhiib loo bado iyo waliba macaankii bari lahaa deegaanka oo maan ku arag iyo abshir adiga quwate iyo sidoo kale waxaad moodaa ururadeenu inaysan kusoo darinba jadwalkooda in sawir qaadista ay ka mid tahay miidiyihii waxaa moodaa tababarada ay qabanayaan waa tababaro la xiriira warbaahintii un keliya warbaahinta qaabkii uga warrami lahayd jandarka qaabkii uga warrami lahayd laakiin mar baa jiray tababar koobnaa inkastoo tababarkaas weyn filayna arkay oo sawir qaadistii la xiriiro wariyaa laakiin iyagu xirfadda already ku shaqeyn horta xirfadda media qofku markuu dhex galo
already isaga aqoon-yahana waayo waxaan uu gacanta ku hay maalin walba wuxuu rabaa inuu wax barto boqol wuxuu kala xataa qofka warbaahinta ka shaqeeya hadduu soo barto weli wuxuu sii jeclaanayaa oo baranayaa oo ku sii jiraya waa xirfadda warbaahinta iyadaa waxay leedahay soo jiidasho qofka uu mar walba kobac sameynayo laba mid way noqotaa marka qofna wuxuu sameeyaa inuu kobac sameyn karo isaga wax isbari karo oo qofna uu ka diiniyo jabaa markuu arko bii'adii ama deegaanadii uu ku noolaa oo aysan micno weyn ka sameynaynin marka inta badan ma haystaan fursadii laakiin iyaga abuuray adaa ku wata waxa weeyaan marka laga hadlayo horta photography marka laga hadlayo horta ballaaranta warbaahintu aad u ballaaranta waliba modernka hadda marka la galay aad iyo aad u ballaaran yihiin qaar ba social media kaliya jooga oo intii pages ka furteen camera iskala soo orday oo iska bahalkeeni laakiin photography marka laga hadlayo soo qaadaysta xirfadda soo qaadaysta laga hadlaya sida agaasimuhu sheekaysi waxa ugu horeeya horta bal inaa horta kaamirada ay adigu isbarataan oo basic camera waliba fundamental camerada inaa barato oo ay ugu horeeyaan mataqaana camera exposure waxa la dhaho baratid oo shutter speed ka aad baratid camerada ay soo baratid inta markaa iska saxdo waxyaalaha koowaad wax ku soo koobay ilaa 5 qodob waxa jira markii laga hadlayo lighting marka laga hadlayo light kala kala qaybsamaa waa outdoor lighting iyo artificial lighting oo badanaa markii anigu horta badanaa waxa u bartay wax international oo inta badan YouTube ka dadka aadka ugu dhigan baahay Udemy wax ka qaatay Skillshare wax ka qaatay dadka YouTube ka aadka u dhigan baahay dadka aadka u dhigan maadaama aan arkay inaan jirin macaad lagu barto wadanka dhexdiisa markii ay inta baratay lightka kaamirada saxdo oo kaamirada xagaas ku fariisto kaamirada noocyada laftooda kala duwan yihiin kuwa dhalinyarada aan gadan karin ma jiraado qaaliya kuwa marka inta awood loo leeyahay Soomaaliya taala de Canon-ta ugu badan waxa ku xigta kaamirada kale oo mataqaana Sony-da inta badan la Canon maadaama ay kaamira rafta tahay oo boor kasta kala bixi karta iyada la dheeraysan inta badan iyada khatara kaamiro kale waa kaamiro professional oo dadka professionalka wax ku duubaan laakiin kaamiro harka toosin karto ba meelaha qaar kood laakiin waxaan xusuustaa marka inta marka lighting kaamirada saxdo waxyaalaha kugu xiga waxa kamid ah wax la dhaho composition-ka kaamirada oo framing marka laga hadlayo waxaan roll of third ba sawirada ku qaadi doonta ma leading lines ba qaadi doonta ma symmetry ba ma framing with frame ba sawir ku qaadi doonta qaab cilmiyeed jira aray u baahan waqti in la sharaxo oo technical ah bay u baahan yihiin hadda soo koobin dul mari doono waa rajaynayna inuu noogu qabto saaxiibkeen inuu isaga wuxuu haystaa meel podcast inuu bal qof si dheer u wareysto cilmi badan iyo aqoon badan naga buuxdo idinka mid ku soo dhacda inaad dadka bartaan inay sawiradii media intaad ka taqaaneen dadku bartaan isku hawshan inta badan barra inta badan shay hada qayb iftiimiyay kaamirada iyo waxyaalaha la xiriira qofku inuu barto oo YouTube ka galo internet galo way badanta waayo aniga garanaya anu marka deegaankan joogay inta badan aan baranay baash waxa igu adkeyd inaan barto qof walba oo jilicsanna waxyaalaha dhibta badan lagu barto uu ka haraya marka dhalinyaro badan baa laga yaabaa inay ka hareen sabab uga hareen inay waayeen wax bara waan caqabad taagan oo dadku xirfadda hadda aan ka sheekayno wariyaasha iyo dadkan kale marar badan waxa ku kallifay waxa weeye xirfadan waqti bay baahantay in la geliyo qofka waxa laga yaabaa waqti u hayn bariis ayrini duruufo badan ma dadku xeeran marka maadaama ay jirin dad wixii u fududeynaya caqabad bay ku tahay ayay marka aniga oo kale marka xagga joogay deegaanka jooga xataa kaamirada dadka si fiican ma sii aqoon internet-kan galay barashada waxaan xasuustaa isbuucina igu qaadatay hal muuqaal samayntiisa kaliya iska badaawa qoridii ma علشان يوتيوب كجلسة مرة كقارب تحسوا جرى أصحاب تدي جري وجوكتان ويدين ترى على مس أيوة ولو علادنا كشكين يا معلم واي علادها يعني قبسين جدا بدن أكيدو أنا وصور قاعدة كلية ما هين مقالة دو جري دوكيومنتري هذا وادينكا علشان سكتر والبقى كاميرا اللي حريدان كلا فيلم إندستريجا شورت فيلمز واسمي ميوزك قيبان كاها marka way dhibaatooyinka aan la kulmay way ka badnaayeen mararka qaar oo dadka qaybtood la kulmaan waxa keenay kala duwanaanshiyo saadabteed baan waxaan isku daynay aniga asxaab kale inaan dhalinyarada bal qaybtood ku celino wixii aanagu naqaanay marka waxaan wada shaqeynaa inta badan hadda platform la Somali Photo Fest
oo aanu laba training baanu qabanay oo aanu dhalinyarada ku barano sawir qaadida oo bilbil soconaya qaybtood haddana inaanu sii kordhino waan jecel lahay sidoo kale aftarkayga waxay qorshaysnay inaan bilaato macaadi YouTube-ka oo aan isticmaalay inaan ku soo gudbiyo intii macquul inta kalena aan koorsooyin ka diyaariyo intaanu naqaano laakiin kuma filna bulshadii kaliya ma aha halkan kaliya in Soomaaliya oo dhan baa wada baahan marka qofkii maadaama uu kula joogin oo wax tusi karayn way adag inaad abshir ma san tahay laftirkeeda su'aasheedii baan rabaa inaan uga sii jawaabo ma idin qorshaysan tahay inaad balidin ku xabilowdaan aad ma san tahay su'aal muhiim ah runtii ka Cabdiraxmaan ahaan anagu waxaan hadda qorsheeyay ku jirnaa waliba kala barnoo maraya boqolkiiba 70 waa dhaafna kala barba aan dhameynay diyaarinta runtii koorsooyin loogu talagalay sawir qaadista muuqaal duubista markan iyada marka waxaan rabnaa in dadkeeni aan siino koorsooyin ku filan waxaan sameynay qayb la dhaalo academy oo runtii company aan leeyahay oo Alool Academy qayb aan ka sameynay qaybta academy-da ku soo siyaadinay academy insha Allah waxaa jiri doona koorsooyin fara badan oo aan ugu talagalnay in da'yarteen runtii ay u noqoto fursad ay wax ku bartaan kaamiradan iyo maaragtay iyo qalabkan media oo kala duwan runtii waxa lagu siin doonaa afka Soomaaliga sidoo kale dadka si ay faham uga wada helaan sidoo kale dadkeena aan joogin magaaladan runtii website-kan u dhisnay wuxuu leeyahay qayb offline qaayas aan ugu talagalin dadka qayb online ah runtii ugu talagalin dadkaasi ay ka faa'iideysan maadaama dadka halkan jooga offline ku baranayaan dadkaasina online ku bartaan markan ma ahan training like course aragno runtii wax fiican si fiican uga faa'iideystaan wax ka bartaan marka waxaan rajayn doonaa insha Allah markuu soo bixi doono in laga faa'iideysan doono hadaa la idmo waana ila wadaagi doonaa waa barnaamijkan soo dhaweynayno waxaan kaloo ku dar lahaa horta runtii hadda waxaa jira revolution badan oo kacdoon jira oo ah in dhalinyarada Soomaalida ku baraarugeen in dadka barnaamijka laftiisa lagu tababaro photography-ga muuqaal duubista editing-ka noocyadiisa kala duwan YouTube-ka hadda markaa ka sheekeynayo kaliya ma aha in niman gaala ku jiraan laakiin boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed baa casharada baa ku jira oo professionals waliba baa ku jira oo bilaash casharadu yihiin oo tusaale ka soo bilaabayaan kaamirada from beginning to hero inaad macnaha sawirada bilowga ilaa dhamaadka lagu geeyay hada color grading-ka baa lagu barayaa color correction-ka baa lagu barayaa sabab ma taqaanaa qofku maanta uu ciishan yahay aan ma garanayo inkastoo ku xiran tahay fahanka qofka waa laga yaabaa qof iska iyo luqadii wax la yaabaa in taada lagu sharaxayo oo Soomaali badan ay ku jiraan laakiin language barrier markasta wuu jiraa sababta qalabka laftiga technical-ka looma hayo shaqo looma hayo Soomaali sax ma saarna xilliga dawladda ma jirin waxyaalo oo mataqaana lagu ilaalinayo ama lagu adjust garay Soomaali kasta oo la saaray ma jirin waa ka dambeeyeen qalabadan oo qalab la adeegsan jiray marka hadda anigu waxaan aaminsanahay YouTube-ku inuu yahay waxyaalaha number 1-ka ah qof waskii mobil smartphone uu wataa access wuxuu leeyahay inuu wax raadin karo هذا ربتد سومالي هان حتى أي واحد صوب حدا وحوي هذا سومالي عادي قرتي وروح عن سدان وقلا والهو جواري أنا وأنا صدقت إن اللوقضها ودت كميديا برana yahay in luuqada kala duwan bartaan aad bay ugu wanaagsan tahay waayo in qalabkan warbaahinta af Soomaali ma aha qalabkan wuxuu u baahan yahay fahan dheeraad caqabad hadda inta maxduub aga soo raala oo maqsan tahay qaybtaana la socota hadda kaamirada markaan diyaarinay waxa weeye arintu hadda ka sheekeynay wax yar badaaminaya layrkaas baa wuxuu sameeyay iftiin yar boodboodiga flicker balayda waxa kooka inaad YouTube ku wax ka raadisi ama aad cilada xalisid terminology wule terminology-ga kaamirada hadaada aqoon ma helaysid wiliga totally marka dhalinyaradu marka waxa aan u leeyahay koorsooyinkii waxaan waxa weeye waxay leeyahay iyagu تسلل أما واحد لو يقان شيء اسمه حاجة قف سوقات وقاعدن كريو يو إريادي بالكوباريا لكن مركا يوتيوب كجشد دبعتنا مركا أنا ويقول عضي وين رادي مدو كذب بان حلا لكن وين الإريجيش يوتيوب كبقلال مقال بهالسا ومركا قارسها ولا كان لهاي أي أتكالس إلا إن أتفهمس ما خير واحد قبا ما واحد قبا ما لما نوض فرنت هاي نورنا واحد قبا كلي يوتيوب كإيين نشوف علينا inaynu helno dad annaga dhexdeeda oo ma professional ah oo waxaan fahmay dad bartaa jira photography waa la bartaa aqoon ahaan baa loo bartaa xitaa ama mass media kamid yahay marka dadkaas xitaa inaan helno xitaa qayb kamid ah
oo dhan jiilasha idinku hadda nin waxaad tihiin professional laakiin jiilasha idinka dambeeya laga hadlayaa ما يجري ولا يجري أنا أقول ما كوري مركا وحن قدر لها أم الخير هذا ما حتى وقت يكون وانا هي وحن قدر لها برهنا وما حتى هي سيدا يعني بروفيشنال كواحد الله واحد يروح له فوتو ستوكينج إلا نيراد إنه هو ينفع يسا فوتو ستوكينج هو يصور كي إنه هو قدمه صور كي إنه هو قدمنا يعني waxay u baahan tahay shuruudo badan ay buuxisid way u baahan tahay laakiin haddana waxa isweydiiyaa haddii dhalinyaradii photo stock ay dabcan sameeyaan oo ay photo trip u baxaan oo budget ay bixiyaan oo waste of time waqti lumiyaan oo meel badan ay maraan haddana markii ay yimaadaan waxa loo baahdaa yani internationally marka hadda aad u fiirsato photo markii ninkii dhalinyarada uu soo qad waqti geliyo oo uu sida bara cadaani oo kale qararkii caalmadu marka qaarkood inuu ka halwado oo ku sigto oo garanaysa odaga ama bulshaawi oo kale maartay ciidkii muduguna kullu ma dheer ma garanaysa kuma soo lumaya go'de marka dibtaas marka dhalinyarada soo marto oo ay sawirada dibtaas ku soo qaadaan foto qurux badan hadda sawirka aan ku weydiinay أنا أصور كان حاجة لا يقعد برهوا ويدي ممكن أصور أذكر بدن ويا وأنا شعلان له إنه مرصوب بندي بس مارتي صور ها ما أصور كاس ما ده بنتنا بلا يقعد actually مركا صورات كان صور برصوا قاعد وكله حدي الله في رصده يعني وأصور أنا سليه وجد نكره لكن الدنيا ده وحوي صور لسه كمان كذا جودي بالله في رسيا وحلا سميه فوتو أناليس يعني فوتو تحليل وانجل كده اسك تاغي كلر كيس حتى سي هيك بيكتشر كان يعني اورينتيشن كيس ما بورتريت من لاندسكيب يعني صورك ولا قيميني يعني ستوري تيلينج حتى شيكه waxa la yiraahdaa every picture behind a story صور kasta sheeka ka dambaysa moogta muxuu muujinayaa sawirkan moogta muujinaya marka haddana waxa isweydiiyay war gudigaas analyze gareynay xagee la geeliya gudiga analyze gareynay afsharax yar ka dhax gal agaasime waxa jiray barnaamij aan runta aad daawan jiray oo ka bixi jiray National Geography waxa la dhahaa ana musawir marka aad baan waxa u fiican Carabiga Ingiriiska marka ana musawir waxa weeye sawir qaadayaal baa la keenaya dadana waxa leeyahay xasku diidana sawirro kala duwan qaadaan marka waxa la siinaya wax kasta u baahan maxaa u baahan tahay waxaas oo ka sawirka gorma qaadanaysa okay waxa la siinaya marka waqti 30 daqiiqo haysta sawirka qaado edit garayso 30 minutes kaas tan walba sawir qaada maanta doo abshar dollarka xagga lagu leexiyo ka gabadha sahal lagu istaajiyo sawiranayo waa loo sameeyaa sawiro barraadu dhaani meey kuraasta hal isoo dhaw xagga waa loo yeelaya 30 daqiiqo mid kasta la siinaya markuu mid kasta sawirka edit garaysto hagaajisto wuxuu color grading iyo color correction wuxuu doonaa ku sameeysto xataa uu bedeli kara black and white waa ka dhigan kartaa waxa marka meesha waxa soo farsanaysa sawir qaadayaal marka heer caalami ah ka sii sareeya expert iyo saan ku dhaho dadana khibradaas waxa isku dayayaan marka sawir walba marka way taxliilinayaan waxay ku sheegayaan ayaga meel baa la geenaya waa la charge gareynaya marka ay wal xukumaya sawirkan waxay ku sheegayaan marka sawir walba khaladka u galay sawir qaado wuxuu ku saxsanaa dadana hal sawir bay ka dooranayaan taas xataa qofka sawir qaado daawanaya waxay ka saacidaysaa marka qeybtood angle as leedahay yes way saxan tahay ama saas way saxan tahay inaad 10 ka barato oo aad ogaato in khaladaad jiro marka way ficnaan lahayd qaabka ay sheegayso inaan helnade sawir qaadayaal expert ah oo rada anaga naga expert garaysan oo sawirada aan qaadno taxliiliya لا بالشاوي برا مركي وينادان بي دلنيرada ka dambeysata u sameyn doonaa agaasimuhu arinu ka dhawaajiyo muhiim ah jira oo photo stocking dhalinyarada wax badan caqabadaha haysta agaasimaha u sharaxaya dhibaatada dadka haysta afsan sawiraan u qaadnaa muuqaalaan soo duubnaa xalaga yaabaa aniga saddex disk baa laga ii buuxaan daroomo iyo muuqaalo sawirayhi aan rabo adaan waxaan qorsheynaa website aan ugu sameeyo oo aan geliyo laakiin waa dib qof walba ma sameyn karo hadana hadda wali sameeyno waqti inay iga qaadato ma jiro platform inta la sameeyo sawirada lagu iibiyo kaliya dadka sawiradii ay sawir qaadayaasha ka qaataan oo geliyaan oo iibiyaan oo dadka lacagta ka qaadi karayaan ama ay marketing u sameyn karayaan laakiin maxamed ma sameyn karo intaas oo shaqo shay ma sameyn karo aan ma sameyn karo qof walba calasan ma qaban karo marka maadaama bulshada iyadu aysan waxaan ku cusub yihiin hadda dhibaatadaas way jirtaa laakiin mustaqbalka ay xalismi doontaa waxa weeye wasiidiya imaan
abshir wax yar baan dhihi abshirow annaga kaliya markaas ma ka hadlayo annaga Soomaaliya ama Puntland gudaheeda ma ka hadlayo waxa la rabaa annaga yani in hadafkaygu inta dheer ka durugsan yahay sawirka aan Puntland ka qaadno waxa la rabaa kambaniyada waaweyn ee footooyinka sawirada gata Getty Image oo kale waxay leeyihiin sharar stock oo kale ina geesi waa ma naqaan photo deposit Roman international yani waa kambaniya international caalami oo footooyinka iibsada laakiin maxay ku iibsadaan sida hadda idin sheegay in taxliil lagu sameeyo oo sawirkan la soo gudbiyo kadib markaas la iibsado sawirada hadda Soomaalida arag madaxdeena markaad u baahato sawir image ku jiraan way iibsadeen lacag bay kala bixeen marka sawirada hadda bara cadaani iyo abshir iyo ninka la yiraahdo Bulshaawi iyo Maxamed markaan ku arko Getty Image iyo Sharer Stock iyo markaan ku arko yani wax farxad bay noqonaysaa may warjeen wax badan baano ina dhamaanteed engagement shaqada sawranteen iyo wali ku wadankeena aan ay soo galaan agaasimaha waan israacnay ayaan dhaweysa safar isku raacnay waa wax badan baad iska soo barateen wax badan aan isla soo aragnay wax badan waan rajeynaa insha Allah waan rajeynayaa in waxaan u sheego yani ninkan waxyaalahan ka bartay intaan la socday waxa amaanaga waa wax runta uu mudan yahay weey daroonta dadka yaga ku fiican ma kamid yahay yani waa drone driver waay well known driver operator weyn waay sababtu waxay tahay waxa ogaa yani sida u kaxaynay maantaas moogta ninkii cadaanka oo nala socday Gustav magac kale uu soo gaabsadaa magaceeda reedawe marka Soomaali baa laakiin magacaas ugu fasaday wixina way iskan keeneen marka ninkaas sawir uu soo wareegay Soomaaliya uu ku taagan yahay lafa goray meesha barga marka laga tago fogoole abu markii meesha laga fuulayo way uu taagan soo wareegayo ninka ku wareejinaya wankan horta safar waa odayaal badan oo iga experience dhacayada waa fadhiyaan waa geedda ka weyn ruuxantii dhalinyarteena Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa in wadanka biliciisa soo bandhigaan meel kasta ay joogaan wadankan wadan bas dhigi karo maanta uu soo kabanaya ruuxantii meeshaan waqti joognay ama 20 sano ka hor aan joognay maanta ma joogno dhalinyar tira badan ama koonfurta Soomaaliya hal dhaho waqooyi Soomaaliya ama bartamaha Soomaaliya ama gobolladeena Puntland la dhaho ruuxantii wadanku dhamaantiis waa wada qurux badan yahay laakiin waxa loo baahan yahay quruxdaas in la soo saaro dad loo soo saaro safarka aan agaasimaha ku sheegayo Gustav wax kale kuma dooran Puntland wuxuu ku doortay waxa waaye waa waxaynagu aan ka gudbinay iyo sometimes intaan wax soo gudbinayna waxa ka qayb qaadanaysaa amni in wadanka kale ka jiro inta halka inta ka tagtid 700 kilomitir aad gaari ku dhaxmadid amaana hasha ruuxantiina habeenina meelan saxanayo wala Gustav iyo niman kale oo waaweyn ay nala socdaan ay leeyihiin halka wali ma nasaxnaana gaari aan ugu jiro laakiin inaan in waxa kamid ah kadisida ay leeyihiin muqaddimista sawirka waxa waaye in aad dadka anaga ina ka baxsan aan soo jeedano wadankeena keeno waxay ku xiran tahay inaan inagu ruuxantii aan u horseedno oo aad ugu faraxsanahay shaqo in la sii dhiiri kariyo lana sii wado meenoqon inaga dhexdeena waan u jeedaa waan la socdaa dhalinyar badan oo ruuxantii hadda media ku soo beegto vloggers oo dhaha ama youtubers safar waqtigelayeen wadanka biliciisa iyo amni ahaanshiisa iyaguna qayb ka yihiin xuska maalinta dalxiiskan insha Allah waa rajeynaa inaan meel qurux badan oo inoo qorshaysan aan ku qabano dadkana la baro waxa kan la dhaho in mihnada tani ay tahay mihnad qofku oo wadankiisa iyo nafsadiisa wax ugu qabanayo akademiyad qurux badan oo ruuxantii sometimes anigu jaamacadda marka dhiganayay qayb multimedia waa ku soo qaatay waa way ka ahayd waxyaalihii maadaama ICT computer aha way ka ahayd waxyaalihii igu soo dhiirigelinayay ama Premiere Pro ha noqoto ama Photoshop ha noqoto ama dabadeed qofku inuu application badan bato ama defense ha noqoto ama bahalka ha noqoto isaga iyo awoodiisa iyo raganimadiisa inuu hore u dhaqaaqo laakiin marka hore in wax lagu dhaqaajiyo waa u baahan tahay hadii ay mihnadu adiga ay gudaha kaaga jiro horta waxaadan ku faraxsanayn oo
doonin marna ma samayn karin marka وين waxay u dhafartaa u socotaa u bahalkiyaysaa marka waxa aad soo gudbisay sometimes aan mararka qaybtood waxaan wax ku cabiraa waxa waaye waxa aan markii xiisa galiyo ama sawirka aqaan ani markii aan iga gadmo budadka ka gadmay dhalinyar kalena run ahaantii sawraanta markii la qaado waxa jira hadii social media uu jaamka yahay ama laga haysto oo sawirka ku soo dhaxtoodo uu ka istaagaya marka maadaama sawirkan uusan ka dhimanayno uusan isagu soo lahayn waqti uu bahalkiya waxa sameeysaa sometimes mararka roobku jira iyo waa laga yaabaa inay sawraanta marka inaad bahayso ay ku qurux badan yahay laakiin sawraanta kale hadii social media hadii uu jira hadal hayn kale oo tira badan sug hayso markuu social media uu degan yahay soo geli uu ku kacaya marka run ahaantii waa ku dhiirigelinaa dhalinyarta in ay ku soo biiraan run ahaantoodina dhinaca wanaagsan ay ka fakaraan wax TikTok uu jira oo views badan oo xagaas uu jiro hatta dhankaas inooga faa'iideysan kareen dadku waynu ku dheeraanay barnaamijkayagii anigoo guntii aan rabay aan weli u gudagelin waxaan rabaa hal mar inaan gunta tago si guudna aan idin wada weydiiyo nin walba sawirkii iyo muuqaalkii laguna abaalmariyay una micnaha badnaa inuu noo faahfaahiyo marka mar walba dhanka barra cadaani waan ku horeynaya maadaama aan marba waxa qofka lagu furoonba looga soo laga dhigtaa barrow sawirkii iyo muuqaalkii kuugu saameynta badnaa intaad qaaday aad oran kartid xataa wuxuu ku sii jeclaysiiyay waxaad sameynayso waxa ku jeclaysiisay waxaan aad dadka uga gaday oo kale xataa ku sii jeclaysiiyay inaad mihnadaada sii korisid oo kor u sii horta ma aad u mahadsan tahay qaab qurux badan barnaamijka u daadiinaysid iyo su'aalaha cajiibka aan weydiinaysid runtii sawir horta marka aad qaado oo haddana lagu abaalmariyo waa moralka ugu fiican baa isleeyahay qof sawir qaada oo ku sii socon karo inuu shaqadiisa sii wado marka dhinaca psychology-ga marka laga fiiriyo waxa jira wax la dhaho neuroscience photography marka cilmibaarayaashu macnaha waxay sheegayaan in qofku hadduu wax qurux badan uu qaado dabeetana uu ka helo sensingkiisa micnaha uu sameynay in neerfuhu maskaxda soo deeso hormoon la dhaho dopamine soo daayo dopaminekaas waxay jeclaysiinaysaa qofku inuu contribution-ka awalba u waday iyo quruxdii soo bandhigay iyo wixii quruxda badnaa in qofku sii wado sababta loo dhaho photographerska waxay ku focus garaysaa inay shaqada ku sii dhex jiraan maskaxda markaas hormoon soo deynaysa markaas sawir qurux badan qaado markaas meel qurux badan qaado markaas muuqaal qurux badan qaadid ku sii jeclaysiinaysa ku sii dhex jirtay marka sawir laba sawir baa jiray anigu aan abaalmarin ku helay waliba aan filayn marar waxa jira lagu sii sheego in lagu abaalmarinayo lagu dhaho warheed agaasima dalxiiska wuxuu qabtay xaflad buu qabanayaa agaasima kiisa waaxda dalxiiska waa xaflad bay qabatay dabeetana 26 bisha la abaalmarin doonaa oo suudadii sii xiratay sii diyaar gareeyay iyo wax intaad si accidental lagu abaalmariyo marka labadaba horta ani waxay u ahaayeen kedis bay u ahaayeen marka 2021 maraan ka shaqeynay magaalada Daahir gobolka Bari marka waliba sawir qaadis uma joogin waxa uu joogay barnaamij oo kale oo xog ururinaya baa joogay oo data hase ahaad sida caadiga markaan shaqo wado wado ka tuurka shaqada iska qabsada shaqaan wada oo aan ahayn media wax ku saabsan laakiin ku dhex tuurtaa waxay maadaama wixii mihnadii ay tahay oo wixii gudaha ay ku abuuran yihiin laami baa sii socota laamiga duumanaysa waxa weeyaan buur baa ka bixisa buurta sawiranaysa shaqada u socota laga shaqo kale waxa laga yaabaa sawir qaado lagu yeero tiimka la socotid la dhaho nin sawir qaado heer caalami ah inala socda marka shaqo anigu saaxiibadii marka shaqada sii dhamay wali waa iska daalanayn magaalada banaankeeda hotelku wuxuu ku yaalaa dhinaca booso intaan la aadin ma xagaan garowe laga sii galo dhinaca armo marka hotelka mana la dhahaa marka hotelka mana u soconay armo ku yaalaa ceel daahir marka suuqan ka soo casheynay waa soo baxnay magaaladan saa u fiiriyay magaalada Usbuuc Paris magaalada Usbuuc Paris ugu eegta marka lugeynay mool iPhone waxaan sitay 10 Pro Max aan sitay iPhone
بدنا مولدا ku qaadat sawirada anigu iyo kaamirada waxba u adeegsadaa sawir baan qaaday marka portrait de moolka laba si wax lagu qaadi karaa portrait wax u qaadi kartaa ama landscape loo marka portrait sawiraan qaaday waxa kay soo qabtay macna birti magaalada ka dhex taagneed iyo line dheer oo mataqaana qurux badan marka framing marka laga hadlayna wuxuu ahaa line line oo haayo saa marka u fiirisid line line waa sawirku ahaa marka waa soo qaaday muuqaalkii sawirku iska haystay marka u reeheedin iyo waxa maalinba dhinac baan ka fiiriyaa marka waxa la dhahaa sawirka editku qayb ka noqdaa quruxda ina sawirka post processing baa la marka post processing ku waxyaalaha ugu fiican software-ka aad dooranaysid ina wax ku edit garayso marka badanaa dadka professionalka ama photography professionalka waxay isticmaalaan Lightroom software loo dhaho aad ugu fiican naturalka iyo muuqaalada deegaanka iyo magaalooyinka iyo street lightska iyo waxaas deegaanka aad ugu qurux badan yahay marka isagaan adeegsaday marka ku edit gareeyay colorkan ku saxay dhinacyadan wixii ku jirjiray baan ka saaray waxa weeyaan qaabka sawirka u fadhiyo oo dhan fariisinaysa dhowr habeen baa hayay dabeetana xuquuqdeeda saartay yarta oo magacayga ku qortay saddex habeen ka bacdi aan soo boostay garay isla magaalada aan jooga laakiin saddexdii habeen oo hore waa eegi marba duc baan ka fiirinaya cid ma tusin laakiin markasta oo xataa aan ku caahta fiirinayay sabab aad buu macnaha mar waxay aad u jeceshay sawirka moogta sawirkaasi sidoo kula falgalay dadku uga heli doonto horta isma lahayn wuxuu yeelan doonaa saameynta noocaas isma lahayn laakiin waxa islaahaniyo kulli sawir quruxda ma magaalo ka qaad markii raanta magaalada loo fiiriyo iyo qaabka magaalada iyo sawirka ka qaaday iyo hore aan sawir looga hayn iyo sababaha waxba isbiirsanaya moogta marka sawirku waa post gareeyay sawirka feeral uu noqday maxay saalax waa soo dhigay rag waaweyn oo mataqaana contact rates waaweyn baa soo dhigay oo mataqaana rag waaweyn aa soo dhigay bahalkii dabeetana waa yaa wareede xaasi oo markaasaan dabeetana gudoomiyay magaalada aan u mahad celinay Axmed wuxuu dhahay inuu subaxii ninka boos ba ku wareejin doonaa subaxii soo diyaar garoobo maxay saalax waa la soo hadlay inuu barnaamijka soo duubtay دوستان أول بدأ أسوق في الله. تنا برنامج كي ماشي عن تقني أحمد أنا مهد علني ماشي نقوي مادين بوس كي يقول ريتشين معنا ولا غير كي سوشيال ميديا أنا وتطلعينين عبدنا إنه يا نجح اللي يقول ريتشين ها من تشيرين نبالي يقول كل سوق قاعد نلقو قدونسي وصوماليا كهر adiga arina marka rag badan ay soo wacayo fursada aan lumiyo baa jira BBC rag ay soo wacayo marka sawirkaas aan waxaan xasuustaa abaalmarin leeyahay abaalmariyay kii labaadna wuxuu ahaa garow ahaa wata in sheegay hotel Martisoor oo socday marka gaarigayga shaashadiisa waxaan ka qaaday sawir dabeetana shareska ninka madax soo wacayo Cabdishiid lana magaciisa xusayo nin oday aad u mahadcelinayo ismaan aan qoon before laakiin uu ka sharax marka asbaranay rag isbartay baan noqonay laakiin sawirkaas waan qaaday waa post gareeyay wuxuu yiri waxa sameeysan iyo aadan uga helay sawirada hotelka ka qaadid ina olole qof iyo foostaan ku jirtay waa ogahay wadada ceel daahira marka waxa ay soo sheegtay waafiga tila markii waxnaayo lacag marka ay soo diray abaalmarin qayb dhiirigelin kamid ah dhiirigelin ma moodaa markii Puntland loo fiiriyo ganacsatadeedu inay laftigooda door muhiim ku leeyihiin in xirfadan la dhiirigeliyo oo wali doorkoodu wax weyn ka dhigan yahay سؤال ninkaas oo kale ganacsigiisa waa sawirta boqolaal ganacsi waa sawir laga qaada xilliyada roobabku da'aan wadooyinka waaweyn goobaha ganacsiga ka wada muuqanaya yani micnaha uu isaga u sameeyay goobtiisa ganacsi sawirka quruxda badan wariyay qaada inuu ku abaalmariyo laftigeeda waxay ka dhignayd xadaarada ganacsiga ay kala leeyihiin absolutely absolutely fahanka qofku u leeyahay fahanka qotada dheer qofka haysto muuqaalada iyo sawirada laga baahiyo deegaanka iyo dhul kasta ha ahaato sida ninka hadda dhul buu uga abaalmariyay deegaan baa guri ma ahayn ulaha ma ogta laakiin dee waa qayb kamid ah xataa dalxiisayaasha meelahan marka qurux badan meel qurux badan la soo sawiro waxaa kuwaada ku sarbeeyay meeshina aadid oo dalxiisu aad wado furay dadka marka ganacsatada ah dhulka waa inay maal gashadaan qurxiyaan deegaanada intay tagaan goobo ka sameeyaan qurux badan kulay dalxiiska agaasimaha aad ugu xeeldheer laakiin kulay marka laga hadlayo laba qaybsanaayo midna waxa la dhahaa ecotourism midna waxa la dhahaa artificial tourism midna dib aadanka sameeyo oo hada Dubai oo kale waa aragtay
Dubai waxa weeyaan dad baa sameeyay dalxiisyada adduunka visitors ugu badan baa yimaada haddana dad baa sameeyay goobaha quruxda badan dhulka la maro dhulka lagu dalxiiso dhulka laga gudbo dooyaha la raaco dabaqyada la raaco waxaan dad sameeyay kuwa ecotourism oo natural oo ilaahay buuraha uu sameeyay quruxdooda badaha iyo buuraha isgalay dhulka quruxda badan dhulka ma taqaanaay la yaab kale ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray fasiru fil ardi oo magaranaysa oo dhulka mare la leeyahay marka qayb waxay ka tahay marka in dadka ganacsatada ah inay maal geliyaan dhulka loo dalxiis karo qayb ay ka tahay wadanka horumarkiisa aad waa mahadsan tahay marar badan iyo kuula kale ayaan ku warjeenayaa aad waa mahadsan tahay كان أقول ما هلا بيت أنتنا كأقول بس نايا absolute ديار أول دي كرنا برو content creator أنا كده إنك أضيع أروك بحين وانين شو ذا expedition حاجة مرة صور لقاضي يقولوا وهذي absolute بحني بعطالا مقالة سيادة أمانة هذه ديار واديار sidoo kale ninka odayga uu sheegayo isaguna waan reer magaala ana wax ku dayasho mudan laakiin aan waxaan qabaa fikrad ka duwan ganacsiga reer Puntland inay waxa weey aad halka ugu liitaa baan aaminsan waa boqolkiiba wax kooban markii inta la fahansan markii saala koonfur iyo qoyo laga nooga horeeyaan isticmaalka baraha bulshada iyo xayeysiimaha iyo sawir qaadida meherad kasta waxa weey صورة لقى قاضي لكن ده كان ما بفهمسنا كان عصيو سامينته كلية هي سوشيال ميديا هذه هذا دب لوس فهمية هذا دب لوس فهمية كل حين أنت إنه حلقة صور قاعد حاجة فريدة طبعا ما كان صور صوب استكرين أو مقالة سوحي أنت بدنا صور عن قاعد مدها بريجور وحنا أفكر شيء إلى قاعد تحكوا بركي كلام ده أنا أدم شعر تعال ساك وعد قاعد مدها ما أنت علم قف مركو إلهي كعنت أكو بركة وحاد ونكسن أدنى وفرحة حيقولي رجالين سأنا بك إيدين قرا كمدا مد إيدين كمدا أنا وقرا مجد أنا مركز إيدين صبرا لا ما تاسو مركز لقاسو قدو ما أنا بروح على العضي جد كان صدق ولا ميرس أنا مش أقدر عنهم مريا صعب صعونيا كبري أربعة ويا هواك أغنى سانكم حا يقول تغنى ستين فيديو قرح بدن iyo sawiro qurux badan baa deegaanka ka soo toobtay halka ka wad waa gabar yar saan ma malaynayo waxa abaal marina ay helay ma dareemin waxa gabadha markii hadalka ay tiraan dareemay marka hadalka wanaagsan oo qofka walaalka ay ku dhiirigelisay dadka dhalinyarta shaqeynayo xukum bitishan inta badan ayaga unba deegaanka u adeega qayb uu ka yahay gabadha yarta haday maqlasan aad u salaamaya وعبال مرنت وجوين هذا هيسي. أبشر. وحبرتين وحبوا باكمين. هذه. تنكله أنت بدن صومالي ملء. يا الله وحوي لأن يلا صور خاذياش أما لغو أبال مريم أما لغو ديركليو أما ترتنا نوع سوية دهي. قالوا لي هذا صومالي USA صومالي بأمر مرقبته. أنا مرقب حكاية ترسنا دتك لأن يرتاعي. كوجوليست صور قاعدة بنتلان أما سومالي ولا علشان صور أنت أنا بدن صور قاعدة حكي ترتبني بنتلان وشاي يقول لي شري مركان جوليسني سوي جوليسني وأنا صور عنو مركان كلتشر كهايو إن أنا يرايو حوش تعلي هذا وكان كهاي صور كاس كان كوجلي كان صدق هذا مركان كوجلي جريمة إن أنا جوجنا صور كقاعدة وقت بدن بقى صوري مركان صور ترتبني مركان قاعدة iyo sidoo kale agaasimaha uga mahad celinaya agaasime kayse iyo agaasime xaayise iyo wasiirka sanadkii hadda horeeyay 23 in maanta dalxiiska ay dhalinyarada inta ugu badan oo ka shaqeysa abaal marina siinayeen uga mahad celinayeen aadna weyn oo farxad gelinta markii ugu horeysay la sameeyay agaasimaha ana qayb weyn ka ahaa ka shaqeynay iyo agaasimaha xaayise amaan waxaan ku talagalnay ilaa 10 wariye 10 sawir qaade marka hadaad xasuusatid shahaadadu waxay ka samaysnaa dhalo ma ogtahay waxa marka waqtigiina soo galay
iyo ayaga dhalooyinka go'een bahalada dhalooyinka la ka go'een barcadan uu ku jiray عارف جامع واسين وسوا ku jiray cawaale kulli dhalinyarada dhan waa ku jiray inta badan moogtaa dhalin ilaa 10 wariye ma soo xulnay moogtaa sawir qaadaan dhaho marka dhalinyaradii ma ahayn in macna laga tagay laakiin wax ayaga waxa ka go'ay dhaladii baash dhalay ahayd dhaladii waa ka go'ay waqtiga soo koob dhaladina way go'day way noo qoran kulli waa wada qornaayeen aad baan uga mahad celinaa calsha in la sii wado dhalinyarada waliba tartan noocaas loo qabto waliba lagu abaalmariyo mararka qaarkood aad bay u wacan tahay door laga qaato safarada magaalooyinka ganacsataduna inay dhalinyarada marka u timaado dadka dhiirigelinaysa sawir qaadayaasha ama muuqaal duubayaasha dadka deegaanka u shaqeeya inay wax way fan ku bixiyaan ayagu kaliya bulshada ka shaqeysan magaalada ganacsi ku leedahay in cid tagto oo ay wax qurux badan ka tago adiga xataa hormaray absolutely soo kooyo aad u mahadsantahay hal qodob baan ka faa'iideysan lahaa oo asmaha qosaya iyo dawladda waxa jirta agaasime maadaama horta sawirada dhib badan laga maro muuqaalada dhib badan laga maro arrimo badan iska jira inkasta dadka Soomaaliya yihiin dad qiimo badan oo ku fiican xagga sooridda dhaqanka soo dhaweynta intaba hospitality wala barwan oo deegaanada aan tagno waxaan ku baranaa dad aad u qiimo badan oo ilaa hadda aan saaxiibanahay oo nagu xiran oo mataqaana markasta ku dhiirigelinaya oo ku casuumaya oo sharaf iyo karaama ku leedahay si kale marka loo eego tartan bay ku jiraan wax koonay anaga maxaa noo weyn wada sawirada noo qaaday deegaanada qaar marka Soomaaliya hadda way fahanteen in wax qurux badan la gudbiyo ay muhiim tahay marka waxaan ku diraa qodobka ku diraa waxa jira ayaasin wax la dhaho intellectual property ama intellectual rights la dhaho oo la dhaho hantida waxa la sharciga hanti maskaxeedka waxa kamid ah xuquuqaha corporate-ka kamid ah qofka sawirka ku soo daalay haduu soo qaado oo waliba shuruudihii iyo waxa idin sheegay oo dhan inta marisid soo post gareysid waxa oo magac yar ku soo qoratis marka la corporate laftigiisa qayb ilaa 10 meelahaas noqda marka waxa jira hadda Mareykanka oo kale waxa jira wax la dhaho marka la joogo corporate notice ama corporate duration waxa jira xilli loogu talagalay in qofku xuquuqdiisa dhowrsanaato tusaale hadda Mareykanka wuxuu sameeyaa qofka sawir qaada wax loo sameeyaa inta uu nool yahay sawirka uu qaaday sida xuquuqdiisa leh marka uu dhintana 7 sano loogu daraa oo dheeriya waagaas wuxuu noqdaa public domain oo waxa la wadaaga bulshada waagaas u furayaa bulshadu qaadan kartaa marar siyaabo kale ay jiraan oo la soo gaabiyo way jiraan shirkada inta ka gataan 95 sano ayana haysanay cimrigaagii waa intaas marka aad ay u ilaashan tahay marka xaqa xuquuqiyaadka kulli Soomaaliya inta ka xusuusto 900 iyo 700 waxa la sameeyay mar xeer waxa la sameeyay intellectual property-gaas oo ilaa 12 qodob meelaha ka koobna Puntland hadda ma laha qaabka xuquuq dhowrida qofka oo muuqaalaha ahaado ama wax kasta ha ahaado waxa laga yaabaa sawir ku soo daashay in qof goosto dhamaysto marka inuu qof iskaba goosta laga yaabo kalar badan ku soo daro oo iska soo boosti garaysto oo deegaan ama tuulo yar ka soo jeedo ku soo sheegno halkaas oo tuuladii hebel taas laakiin marka la fiiriyo waa big mistake qof xuquuqdiisa inta laga jaray oo haddana meel kale wixii lagu sheegay oo bulshada si kale loogu gudbiyay quruxdii iyo waqtiga soo gelisay iyo rafaadka soo mareen deemeeshis kulmayaan sheegay anu mar baan tagay 2015 yani quruxda inay leedahay waxaas macna ma sidbanayn jirin laakiin cawaale wuxuu nambaray murcay waxay tahay marka cawaale anu wada mahad celin walaalkeen runtii sawirada uu ka soo qaaday murcay kaliya oran gobolka Gardafu oo dhan hadda uu ku noqday runtii sawiro qurux badan oo maartay muuqaalana la sawirana leh buu ka soo qaaday isaguna aad u maas idinko dhan sawiro qurux badan qaatay waa maadsantiin uma wanaagsantahay adiga iyo saaxiibada iyaga ismahaba runtii marka wax qaadaysa waxa uu qaada waxaan ku yahay wax uu qaado qofka keenada marka inta badan aan social media waxaa u jira ina waxa aan ka helay wax wadanka quruxdiisa soo gudbiyo abaalmarino way jireen hal abaalmarin baa xasuusta oo sawirka aan ka sheegay
soo qaadayna magaalada soo aadaynayna dhiiriyaan galnay 6 saacadood meelahaas ku jiro minutes waxaan soo I think sawraantii bihansansiga iyo aan iska dhacday waa ay ana wada dhooqa meelo marka waa wax lagu fahmo inaan waxii aan u dhigtoonay aan inta soo qaadano wax qorfana baa soo qaadnay dhammaan dhalinyartana waa dhiirigelinaa waxaan leenahay siiwa kelimada waxaa jiray waxyaalaha dib u laabanay garow jirka soddonka badan baa waxaa lagu soo qoray nin waa daalisa jirka soddonka may waa u dhowahay laakiin waa sharaxantii waa wax qurux badan sawiro qurux badan baa kasoo baxo mid ilaa qurux badan buu leeyahay marka dhalinyartuna markii ciddii socod u baahan كلينتي ما كده أروري هواني دمري واجد أنت وضع صنبال إسكالوية مدام أنت لو قلت بدنا سيفين هذا وقتنا يسمى بسلوا عن علاج أمريكا وحكون تجربين ودن كان كل شيء سينقون إنتنا قدام سوريا ده صار وحبنا ولا كرفي أمريكا wadankeena iyo quruxiisa aan soo bandhigno yeenan usoo bandhigin aan wax ku helno laakiin aan usoo bandhigno wadankan picture-ka laga gudbiyey oo badanka ugu jira ama Google ha noqoto wax kale ha noqoto caalamku ay ka haystaan aan bedelno hadda waa jiraan dhalinyaro badan oo cadaan leh oo wadanka yimaaday intaas inkaas looga sii dhawaado wadankan isku bedelaya oo la dhahayaa oo wadan runaantii 100% sayfina waxaan ku yeeday wadankeena dawlad ma laha laakiin dawlad iyo wadan loo dalxiiso inta waxba hays garab socdeen wala soconaya laakiin qof walba dhinaca uga aadan turkiisa wadankan anaga oo baale qof kasta dhinaca uga aadan ha ka qaato wadanka aan wada dhisno ama bilic ha ahaato ama amni ha ahaato ama wax kale ha ama dhismaha ha ahaato ama environment-iga la ilaaliyo ha ahaato meediyuhuna ma ahan kaliya in landscape-ka macnaha sawir qaadista kaliya ma ahan in sawirada landscape-ka la qaaday adduunka waxa ka jira waxa la dhaho dhalinyarta qaada street photos-ka oo dadkeenu waa jiraan oo dad xoogaa qabla baan nahay waxa jira waxa la dhaho camera phobia baan qabnaa haddii aad kaamirada adoo qarqarka ku sita aad aragtid qof sawir qurux badan ama sheeko qurux badan ama qof daan iyo geer iyo samsan ama baadiyaha noqoto ama magaalaha noqoto ay istiraahdo qaad qofkaas inuu ku jeedin ma ahane ma qaadi karidaa ifan xataa haddii aad qaadido oo qofkaas aadan u sheegin wax noqonaysa in qofka xuquuqdiisa qayb kamid ah aad ku xadgudubtay marka waxa arkaysaa waxyaalo badan oo caqabad ku ah marka caqabadahaas aan ka gudubno dadkeenu waa hadii badanka la arko wax qurux badan oo la soo gudbinayo qof walba isaga maalinka dambe ku dhahayo kaale anna sawirkayga qaad ha hadii aad iyadoo sidan ay ka dhimantahay isbedel fiican kulba ku rajeynaya hayemaan waxaad ka warbixisaa bal wixii ama sawirkii horeba soo sharaxday sawirada kuugu macnaha badnaa balse gabagabadii hal iyo laba wixii ugu macnaha badnaayee la xiriiray sawir qaadistaada ama muuqaal duubistaada umul khayraada mahadsan tahay dhammaan asxaabta halkan la fadhidana oo agaasimo ugu horeyn oo mahad celinaya runtii waa dad dalkan يعني wuxuu kamid yahay la dhihi karaa hantida dalka uu leeyahay sababtoo ah dalkii bay u istaageen bilcisa muujiyaan waxaan aad ugu faraxsanahay runtii anigu inaan 2 jeer guuleystay tartanka ay qabatay USAID oo runtii 4 sano la qabtay 2 sano oo kamid ah aan tartamay labadaba aan ku guuleystay 2 sawir oo runtii sikadiisa waxyaabo kadiis aan saga qaaday safar baan waxaan ku aaday garacad waliba safar kadis oo ahaa yani la igu yiri subax garacad balaadiya subaxan oo shaqo marka u socda ka bacdina maxaa garacad laga doonayaa baaskeri waxa la yiri waniga waji waxa la sameeyaa markabkii horeeyay oo ku soo xirtay dekedeena keeno waan iska raacay marka daroon baa iska qaatay kaamira caadiya sawir baan runtii halka ka qaaday daroona sawirka runtii waxa ka muhiimsanaa sheekadiisa sheekadiis waxay runtii dekadii ugu horeysay waa garanaa garacad Afrika oo maaragtay si isku tashay bulsho ay ku dhisato iyadoo ognahay caalamkan Afrika oo arko qaarad faqiira qaarada madow waa la dhahaa waxa la dhahaa yani waa qaarad
يعني كتير سنتها كل شيء مركو حلا ياب نقطي أو حتى عددات كسر كقيمين اللي ياب كن نقطي إن ولي بس الصومالي ودل بربر كسر كبنا إياه داد إنت إسكت أشتين دولد أنا وحبك جلين يعني داد كلي إسكت أشتين أيوة تأكل الدبل هيلين إن الدكات لستين ولي مركب كسر حرنا يبغى إحنا نقطع حلا ياب أولو هنتي مركب كسرنا سداد كديان كلية داد كديان كلية رنتي وحنا مركز سوى عتيبة سوى كاسي وحن كم تستكانت كواد إن أول بانكو هلاي أو كفرح سنة هاي مد اللي وعندنا وحوها هاينا من ذاك من حفلة كغيب كلي حفلة أمريكان كغيب كلي مقدشة شوقي runtii sawirro ma qaadayn sababtoo aniga sida abshir sheego kale ma xiiseeyo dadkana sawirada badan ka qaado waxaan jeclahay anigu waxa ay xiise galiyay inaan qaado laakiin qof hebel iga qaadi hadhow ma xiiseenayo sababtoo dadka badana iskuma fahana qaabka hagaajista anigu waxaan jeclahay si gaar ah hagaajisto dadkuna si gaar ah jecel yihiin waxbuu doonayaa xafladda runtii muuqaalo yar aan iska duubanayay anoo muuqaalada kamarada ku duubanay waxaan arkay ciyaar aan weliga hore u arkin ciyaartaas waxay ugu noqotay wax la yaab leh weliga hore ma arkin dad baa runtii dab afka galgashanayeen jirkana oo iska marmarinayeen ani haanta la yaab saad ay ugu noqotay maba gubaneen dadkaasba ka waran aniga de waan gadaal baa runtii taagnaa waan soo orday hore baa imaaday hore marka imaaday cajiib bay ugu noqotay dadkan dabka ismarmarinaya haddana afka galgashanaya oo haddana waxba aan gubanaynin dee oo dab caadiya dee oo ifayo aad arkaysid sawiraan marka qad qaaday sawir marka nin kamid ah soo afka si fiican u gashanayo hulcaya afki dhexdiisa buu hulci ka soo baxaya baan sawiray marka ciyaartu markay dhamaatay kadib xafladu dhamaatay waxa u tagay ninkii waxaan ku yiraniyo weligii waxaan ma arkin maxaa la dhahaa bal xoogaa waxa iga siisaa background-keedii ka bacdi wuxuu ciyaartu waxa la dhahaa saylo waa ciyaar hiddiye dhaqan oo Soomaalidu leedahay laakiin dadkii yaqaanay baa si dabar go'ay runtii hadda banaadir bay ku soo koomatay dadkaas wax yar uma hadda yaqaana ciyaarta waxa la dhahaa in sarcaadka saylo ama dabtufka saylo waa hiddiye dhaqan runtii waxa malanayaa ma soo gaarin deegaanadeena sababta dadkii yaqaanay baa si dabar go'aya waa ciyaar halis badan oo runtii u baahan taxaddar fara badan intii baan ka soo qortay sawirka runtii asna award baan ku guuleystay oo USA-na labada sawir baan ku guuleystay waxyaabo kale way jiraan oo iska loo kala Puntland aan ku guuleystay oo iska fara badan laakiin tirada sawir ma maleysanin labadooda inaan ku guuleysan doono laakiin runtii aad ugu faraxsanahay way dhiirigelisana shaqada hore ugu sii socdo marka sawirro fara badan oo qaaday way jiraan oo aniga ahaantii aan u arkaynay muhiim yihiin laakiin de wali aanan runtii ku helin awaad abaar ku tartabin laakiin runtii labadaasaan aad uga xuseeyaa waxaan sii raacsanayaa fariin yara sawir qaadayaasheena Soomaaliyeed runtii hadda soo koraya ama xirfadda ku soo biiray waxaan siinayaa talo yar oo ku saabsan runtii sawir qaadayaal daati waxa la kulmi doontaan caqabado fara badan caqabadaha hadaan hadda wax yar ka sheego caqabadaha la kulma cajiibka waxa kamid ah magaalooyinka Soomaaliya أنا ما ندرون كدولنا يا رنتي دتك ديان كإتوريي على إسك صوب حي واي ما هذا مرمح دعي وحال يريني وحن أدل دولنا سيد قال أبغى كذا ناس عن هذا الكنية دتك النيبة marka fahanka bulshadeen runtii uu gaabna waa la turiyay ana shafkan garacdo waxaan ku yiri magaaladii way ana ka xigo jooji iga darada magaalada iga xigtaan ma fahanti marka sawir qaadayaasha waxa la yahay runtii markaad sawir qaadaysaan dib badan baa la kulmi doontaan dhibaato fara badan baa la kulmi doontaan adkaysiyaasha runtiina waxaan ha u qaadina inaad ku heshaan kharash ha u qaadina runtii inaad ku heshaan magac laakiin u qaado waxaan inuu noqon doono kayd biri dalkeenu hooyo ku faani doono kayd waxtar u noqdo كنا هويو وحد الله يسمير كنا فربضية تدال إن شاء الله تعالى وما سنتين قولة كبدن بارجيني أنا هبين كلنت أصل صور فرسن أنت إن كبدن إسكوري سنتونو وحوين بينو قد جنت هاي رنتي كل أنا قايب بعدين كهايو أدبنا وفرحة مدين كمدا مركو إسبدل سمايو وحي إجت هجناتا هبين كسينا سوق قول استعمال مركو قول كوين بعدين ودرجيني سودو أجاسمي كبدي بارنا labada waad ka hadlaysaa ayawad gabagabadii baan rabnaa inaad inta horta aan soo gabagabeyn bulshaawi hadalkiisa waan dabageliyaa yani ninka afka holca gashanaya yani sawirkaas sida u gadmay u yaqaan baracdani waa shaarar speedki waqti yani wax xoog ku soconaya hal mar inaad ka qabato waqti يعني وحياله صورة لوقي ما يكملها شار سبيل كاس مركا وحنا سليه هاي كوبوبسي صور كاس وقت وأنا كوجولي سو ما تسيه وأنا خبرت وقولي هاي وحنا هرتا مركا ورسا
mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinayaa ilaahay waa mahad iska leh isukay keenay falanqayntaas fiican oo quruxda badan oo aan samaynayna runtii iyada laftirkeedaaba waxay tahay maartay in wax badan laga baranayo dadku ay ka baranayaan ma ogtahay waayo hadda waxyaalo badan oo aqoon ah baa dhalinyarada ay intooda badan soo bandhigeen ma ogtahay iyo khataraha ku gadaaman sawir in la qaada wax halisa maaha waxaan leeyahay ninbaa wuxuu yiri wiilkiis aabuu shalay saan u diray markiis meela socota kaliya meela socota waa intaas uga dhawaataa marka waxaan leeyahay walaalahay waan ognahay meeshaad wax mariseen iyo sawiradiina meesha ay ka dhaceen iyo ummadda sidaad indhaha ugu furteen ajir iyo xasanad aan la soo koobi karna Allah idinka siiyo halkaasna ka sii wada idinku shaqooyinkiina kala wato macnaha ma ahan inaad ayada kaliya aad ka dhigataan baash laakiin idinku shaqooyinkiina kala wato hadana inaad bilicda deegaanka aad maartay aad soo bandhigtaan waa farxad bay noo tahay maalinta dalxiiska waa inagu soo socotaa insha Allah bidmillah kareem 9 bisha 9 keeda kulligeen waan shuunooteedena waynuna maartay sawiraan waxa marka maalinteeni 1 Augustana haday kuma aan furne wayna ku soo socotaa waa maalin ku weyn waa maalintii dawladeena Puntland la asaasay marka hal mar hadan orno markii la bilaabay Puntland la asaasay taariikhdu ku beegato dhamaanteen soo baxnay taasaan soo kabila waa santahay kayse intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijkaasi falanqaynta ee ku saabsanaa sawir qaadida iyo bahdan dhalinyarada ee iyagu sawirada iyo muuqaalada bilicda dalkeena iyo deegaankeenaba ka turjumaysa soo bandhiga haddii aan ka bilaabo midigteeda waxaa fadhiya agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta idaha iyo dhaqanka dowladda Puntland kayse dhinaca waxaa ka fadhiya Barra Cadaane oo laftigiisu ah madaxa meediyaha iyo xiriirka bulshada ee wasaaradda deegaanka waxaa xagga shaka fadhiya Abshir Corneel oo milkiile warbaahineeda isaguna oo sawir qaadayaashan da'da yar ee barnaamijkan doorka kule kamid ahaa halka waxaa fadhiya Moo Cabdiraxmaan oo bariisa bulshada Moo Cabdiraxmaan ugu qorantay waxaan Cabdiraxmaan oo isaguna sawir qaadayaasha iyo sidoo kale dhalinyarada leh goobaha warbaahineed ee ay dadka ugu bandhigaan bilicda deegaanka Cabdiraxmaan Bulshaawi marnaba isku waxay noqonayaan teetar dhamaantood oo isaguna sawir qaade iyo muuqaal duubay sidoo kale mulkiile warbaahineed kuna soo kordhisay xarun laga baran doono warbaahinta akaademiyada warbaahinta dhinacyadeeda kala duwan haddii ay noqoto sawir qaadida muuqaal duubida qaab kasta oo warbaahin la xiriirta iyagana lagu baran doono warajeynayaan dhalinyaro badan ka faa'iideysan doonto anigoo Makhar Cabdiweli Jaamac oo bahdan aan ka fogfogeyna barnaamijka inta lagu guda jiray waan idin daadihinayay Faris Maxamed Cabdilaahi barnaamijkeena duubaysay anaga iyo bahdi kala duwaneed ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waxaanu idinkaga tageynaa sidaas iyo amaana